masjidkan aadka u weyn waxaa lagu magacaabaa Cali Jimcaale waxaana laga dhisay masjidka magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Waaberi agagaarka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International Airport. masjidkan waxaa ku baxay qiimo lacageed dhan 12 milyan oo doolarka Mareykanka ah. dhismaha masjidkan waxaa mas'uul ka ah qarashka dhismihiisana bixiyay ganacsadaha weyn ee Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale. masjidkan ayaa waxa uu bilowday dhismihiisa sanadii 2017. masjidka waxa uu ka kooban yahay 3 dabaq iyo basement dhulka hoostiisa ah. basementiga waa baakin ayaa loogu talagalay wuxuuna qaadi karaa xad baabuur 150 oo gawaari ah. 3 dabaqna waa dabaq loogu talagalay ragga inay ku tukadaan, dabaq loogu talagalay dumarka inay ku tukadaan, iyo dabaq loogu talagalay machad ama madaraso lagu barto daraasaadka diiniga ah. sidoo kale musqulahiisa iyo qulataynkiisii waa u dhammaystiran yihiin. waxaa sidoo kale masaajidka attached ku ah ama raacsan dhismayaal kale oo kala ah restaurants ama maqaaxiyo iyo sidoo kale cafeteria ayuu leeyahay. sidoo kale wuxuu leeyahay hooy loogu talagalay imaamka iyo muadinka masaajidka ay degaan, sidoo kale xafiis loogu talagalay maamulka masjidka iyo supermarkets oo loogu talagalay jamaacaadka iyo dadka ka agdhow goobahaas masjidka inay ka adeegtaan. naqshad ahaan ama shakliga uu masaajidka u eg yahay waxaa laga soo mingooriyey Ottoman architecture ama waa naqshad dhismeed ku salaysan styleka Uthmaniyiinta ay wax u dhisan jireen. waana waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah qubooyinka ama structure-kan qubada la dhaho qof walba suu u yaqaano oo masaajidka dushiisa saaran oo 5 xabo ama 4 xabo oo kala ah oo aadka u waaweyn iyo sida iyo kuwa kale oo yar yar ah oo lagu xardho masaajidka sida masjidkan kuwa geesaha ugu wareegsan oo kale, iyo minaaradaha 2 xabo ah oo aadka u dhaadheer oo dhan ilaa 75 mitir ayaa aad waxa caan ugu ahaa boqortooyadii islaamiga ahayd ee Uthmaniyiinta. masjidka tira ahaan dadka ku tukan karo waxaa lagu qiyaasaa 5,500 oo qof. masjidka xarig jarkiisa iyo furitaankiisana waxa ay ku beegan tahay gudaha bishan July ama bisha Dhul-Hajj oo si gaar ah weliba maalinka ciida ayaa si toos ah loo daahfuri doonaa insha Allah.